siyaasi shalay yimid برينا أن لا أركي دون ودور كي سجلي دون هذا روح نقول يا علماء ده والله أعلم المهم بان أركي أن لا لكن waxaan u malaynayaa siyaasiyiintuna qoy inay shaqadooda gabeen oo aanay diyaar u ahayn aniga sheekh umul hadda wuu ila saxsan yahay of course absolutely and of course حاجة أمنية وسحسنية absolutely ha because waana muhiim arrintan uu ka dhawaajiyay because mar fara badan bay soo laalaabatay hadduuna ka hadli lahayn waxa laga yaabaa maanta si ka duwan inaan uga fikeri lahayn ama aan oran lahayn culimada aniga xitaa mar aan aaminsanaa sida siyaasiga oo kale culimada maxay wax u bedeli weyd laakiin waxaan ogaadayba dowladnimadii iyo waxaan ka aaminsanaa inay khaldan tahay picturekana uu yahay dowladdu in ay muxuu ahaa ilaaliso qofka shacabka ah amnigiisa iyo noloshiisaba saki waa runtaabo dawladda waa inay shacabka ilaalisaa marka maalinba waxbaad horta aad fahmaysaa oo aad ku waaye ilbaa kuu baxaysa dawladda waxaa ka xoog badan inta badan shacabka waayo shacabkii ayaa sidan rabaa sidan in loo noolaado berigii horan waxaan isdhihi jiray nimankan afarta shaar soo toshay soo shaqo tegay baarlamaanka iska fadhiya dhowrka kun iska qaata shaqaba qaban baa raba laakiin waa dad raba inay sidaas u noolaadaan shacabka soomaaliyeed dad hore u socda ma ahaba ma fahantay marka waxa weeye sidaanay ugu badisay badan tahay in la sii jiitaan oo wadaadka uu dhaho waa siyaasiga uu dhaho wadaad shacabkii dhaanano reereebela saasay ku qurux badan tahay laakiin fiiri shacabkii laftirkooda qof $10 bixinaya fiiri qof walba wuxuu ku leeyahay muwaadin baan ahay mugta waddankaygana waxu qabtaa rabaa haddii lagu yidhaahdo dadka shacabka soomaaliyeed oo dhan $10 iska soo arooriya min qof $10 intaad isku qortaan dal iyo dibed ya kala xisaabtama siyaasigiina miya ogolaan lahaayeen ma qof bixinaya $10 baa jira arrintanka inuu qof $10 bixinayo laakiin wuxuu ku leeyahay waddankayga waan jeclahay mugta anu tabanba kama sugayne xitaa inay adiga waad dhowdahay show ani tabanba kama sugayne xitaa inay wax xaqa oo runa sheegaan baan ummaddan lagu karayn ummaddan xaaraan way dhaaftay waxay cuneen wallahi believe me waxay cuneen fiiri waxa laga yaabaa maanta haddii la dhaho waa liistile fiiri laba qof baa istilaysa laba qof haddii istilaan laba reer baa islaynaya $1 million bay ku dhiibayaan alabaaye habartay dahabkiisa iibinaysaa mareereewel allah cagaaro qabanaa alla dhimanay dhirag haddii oday reerkooda ah dadkaa meesha lagu laayay ilmahoodii fiiriya ilmihii dadkaa meesha lagu laayay raggaa layska hor keenay way qatan yihiin qof meel ka dambe eegaya male maxaa naga galay danihiisa waa goomo adiga fiiriya dadka noocaasa wey dawlad dhaqaale siinaysa male dadkii shalay qorshaha iskugu dhiibay ilmihii ma wakiilad qaadi karaan marka adi $10 iyo meelo dhadhow baad ka hadlaysaa aniga 5 years ka hor soomaali hami weyn baan u qabay waan ku maqlayaa ku soco maqlaysaa taleefon baa iga soo dhex galay hadda quus baan ka taaganahay aniga waxa weeye walaa wadaad walaa siyaasi walaa islaamahooda caruurtooda gidi waxaan miisaan baan wada saaranahay macalanaga halka fadhiya miisaankaasaan wada saaranahay yaa ma fahanti hadda maan dhaweyto ra-iisul wasaaraha waa kii hadlayay af labadiiba intuu kala qaaday wuxuu yiri qoladii afka duubnayd xitaa qaar shiicada u badnayd ee meesha joogtay ayaan waxaan taageersanahay xamaas baan taageersanahay buu yiri oo u dagaalamaysa dadnimadooda iyo qofnimadooda iyo yani fiiri yani fiiri hadduu oday kana ha away caalamkii
away dadkii xuquuqda ilaalin jiray bani aadamka away carruurta u dagaalami jiray xamaas argagixiso maaha waa urur xorayn oo xoraynaya dalkooda xoraynaya waa away انت وسعت له تبغى مقليس هذا غير بس كانوا والين xuquuqda ilaalin jiray bani aadamka isagana wuxuu ku leeyahay al-shabaab baa la dagaalamaya ma ogti حتى dadka u saabtamo ee background sama maqlis ha habi way ku yihiin inuu saa u hadlo social media da fiirsa habi ku yahay fiir waxa uga khayr badnayd dadka la leeyahay waa Falastiin sama isaga oo yiraahda Falastiin in saa loo gala ma ahaydin dadka la leeyahay inuu u hadlo ayay ahayd intuu urur adduunka waa u qoran yahay inay argagixisan yihiin isagoo mushaharkiisa iyo inta siiso balday adigu muwaadinka Soomaaliga ya muwaadinka Soomaaliga ilaa South Africa ilaa Hindiya daadsan yahay ilaa China oo lagu gubayo lagu silcinayo naqoyda mushaharka uu qaato aku dhamay isaga mushaharka uu qaato iyo inta siisa hadda deyn buu dhahayaa laga cafiyo muxuu deynta doo cafinaya bariga waxa soo jeedin deynta ilaa ma cafiyo waxa la rabaa deyn cusub in la qaato وفان مليامات بقى usoo milqanaya waa dad aan xoolo aan lahayn cuna moogtahay oo hadana shaar inta soo gashteen kibriyo jahiliin warniyo meeshaan dadka ma soo socdo dadka soo socda ma jiraan aan qulsano soo qoon la haligina ma jirto wallahi billahi inaan dadka soo socon waxaad ku garanaysaa isig video kala noo hayaayo qosol waxa dad waaweyn oo lagu oranayo aamus bal ka waran aamusa ayaa laga kari laaya halkan waa Hargeysa fiiriya akhlaaqda meeshan insha Allah saynu madasho u bilowno waayahay caawa saacada laga bilaabo qof waliba naftiisa isaga mas'uulka ah qof waliba isaga madasha qurxinteeda qayb ka ah qof waliba isaga ku dadaalay inay madashaasi maxamed u qurux badnaato sida awgeed hal mar ayaynu si wada jira u aamusaynaa insha Allah saynu waxa ay yaabka badan waxyaabaha la yaabo waxa ka nimankan hadda wax isla waxbad aaminsanaysaa shaararka ay wata ay kuwaas meesha qaribayaba hay diidaad aniga waxaan arkay aroosyadan ku arkay qofka aroos dhiganaya fiir qofka arooska dhiganaya 10 islaamood baa isxilqaamaya wax dirtay male hariyaada gaamusa sharab kan biyaha hariyaha dig kafkan meesha iyaga qaylo ku rogaayaba basidaasa aniga nimankan shaararka wata hadda meesha iyaga ka muuqda iyaga faraantaag taagaya confused waabo wadad laakiin qaylinaya ma aragtay qof inuu qayliyo qof qaylinaya aamusinaya adiga baaba qaylinaya maxaad qof qaylinaya aamusisa laakiin meeshan hadda joogaan waa meel ay madax baa joogtay xitaa waxa uu jooga candidate dhan oo madaxweyne u ordaya madax far badan oo reer Soomaaliland joogta akhlaaqdii fiiriya iyo ma garanaysaa maamuuskii ay dadka wada lahaan lahaayeen adduunka kale ma waxaad malaynaysaa in dadku dhan u wada qaylinayaan hadhow waxa la leeyahay meesha noo qurxoonaata kamarada aan iska iibino moogta iyagu daamiya loo taagalaya dadkan wada